السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان سو دوادا ان اصحاب سو جيد اصحابتنا سوقنا ان شاء الله تعالى برنامج كان اد حساس yahay barnaamijkan barnaamij waxa aan mataqaana ku sharaxi doono waxa waaye mashruuci fashilmay magaca Soomaalida Helsinki degan macnaha waxa waaye sharaftii karaamada laga qaaday amaan sharaxa insha Allah ta'ala ragga ka dambeeyay mataqaana mashruucan ku soo aasasma caawada sharaxi doona hadii la yiraahdo mataqaana duqa Helsinki mataqaana gubernatoraha caasimada Helsinki dalka Finland yam Fabafori waxa waaye mataqaana mashruucan yaa u keenay aydan waa faahfaahin doona hadii la yiraahdo waxa waaye meel badan barnaamijka aad xasaas u yahay waxa kale oo sharxi doona golaha dhexe yaa raggan golaha dhexe yaa way oo muddo 20 sano ugu dambeysay waxa waaye mataqaana xaaladda mataqaana Soomaalida Finland ceebeeyay mataqaana sharaftii karaamada ka qaaday mataqaana Somaliland ururadan kale mataqaana xoog ku haysto raggan ay sharxi doona waayda calaamadeed doona hadii la yiraahdo mataqaana degmooyinka ka tirsan yihiin mataqaana caasimada dalka Helsinki ay sheegi doona hadii la yiraahdo mataqaana waxa waaye raggan waa very powerful rag awood ku yeeshay way mataqaana wadankan Finland ayagoo markaas adeegsanayo qaab qabyaalad ayagoo adeegsanayo dawladda Finland waxa waaye mataqaana aad iyo aad xiriir la leh mataqaana ciidamada mas'uuliyadda Helsinki mataqaana Finland xiriir la leeyihiin waxay xiriir la leeyihiin ciidamada booliska dalka Finland waxay xiriir la leeyihiin mataqaana dawladda dhexe dalka Finland waxay xiriir la leeyihiin mataqaana ilaa kuma samadiido mataqaana socialka iyo mataqaana iyo mataqaana iyo hay'adaha mataqaana oo gargaarka dalka Finland oo dhan xiriir la leeyihiin nimanka waxa waaye niman waxa waaye oo ku heshiiyay waaye mataqaana inay mataqaana iska dhuuqaan mataqaana Soomaalida Finland waxa waaye xoog ku haystaan waa sida wadamadaas kale laakiin nimankan Finland waa ka duwan yihiin maxaa yeelay Finland waxa waaye wadan waxa waaye oo dadkooda yar waaye macnaha population aan Finnish waa yar yihiin 5 milyan jajab waaye dhaqaalihiisana waa fiican yahay marka wadankan wadan weyn waaye wadan yar ma ahan waxa waaye mataqaana waxay ku dhex dhuumanayaan shacabka ku dhex dhuumanayaan raggan dadkan oo golaha dhexe aydan sharxi doona hadii la yiraahdo awoodday ku leeyihiin Soomaalida dhexdeedii aydan sharxi doona barnaamijkan sir badan ay qarxinay aan soo hubsaday way waraaqahoodana sidaan Somaliland ururada waraaqooda u soo dhigay waraaqooda u soo dhigi doona hadii la yiraahdo taas ka waloolin insha Allah ta'ala hadii la yiraahdo laakiin raggan aan sharxayna insha Allah dhamaan soo dhawaada asxaabta la soo jeeday barnaamijkan aad iyo aad u xasaas u yahay share ilaa gala saar walaalayaal maanta عوض واحد بدنا أوانيسن عوض واحد بدنا أوانيسن دي لا يراد سر بدنا هذيك قرصنا هذا عوض أوانيسن إن شاء الله دي لا يراد فردوسو علي إيدي أباي معن آدم كو سلام أيان متقانا أسمع دمان سو دوادا متقانا فيصل مجاهد كوين رقيو متقانا عبدي دمان سو دوادا دمان انت كذا سو كشهاني دمان سو دوادا برنامج كان برنامج waxa way aan ku sharaxay way mataqaana waxa way Soomaalida Finland yaa hoos u dhigay Soomaalida Finland yaa ceebeenayo Soomaalida Finland yaa sharafta ka qaadayo ay sharxi doona hadii la yiraahdo insha Allah ta'ala raggaana maxay waxaan u sameynayaan aydan waa idin faahfaahin doona waxa haysa صدقاس دقيقة إنه كوبا دمان أخبارتنا هذه إن شاء الله تعالى الواحد يشرح دونا مشروعا فشلمي متقان وكعب ويدوق متقان إن هلسنكي يأوجي أيضا يشرح دونا رجعنا إياه هاي إنه يشرح دونا ما أنتوا حوالي لبنان يضمنا مقعد الشيء دونا متقان أو عيب يفتح ما أنت هاي صوتها أو حوالي إن ميسكال صار دونا دي لا قفل ماشي حوالي أنا قفا نعمنا مجرو أنا قفا متقان كوكعسنا مجرو ولا ليال dadkiina magacooda aan sheegi doona hadii la yiraahdo annaga waxaan nahay Soomaalida Finland shacabka Soomaalida Finland anahay aniga iyo rag badan oo ila mid ah oo gabdhan oo ka kaaliyaal neersiyaal rag badan oo dawladda oo caadi u shaqeysto xoogooda dhacan ka cuno dad badan oo baslayaal dad badan oo tagaasi wado oo tagaasi ka shaqeeyo Soomaali ah iyo rag badan oo dhacankooda xoogooda cuno veromaxiyaal waxaan u aragnay inaan u istaagno inaan badbaadi karno inta badbaadi karno oo ah ummadda degan Soomaalida Finland
siiba hooyooyinka siiba gabdhaha iyo ciyaalka oo maanta sharaftooda kalaamadooda meel looga dhacay hooyooyinka mataqaanaa oo jididka lagu caynayo guri markay kasoo baxay cunuga ayagoo wata la caynayo gabadha ayadoo shaqada kasoo baxday la aflagaadeynayo wiilka dhalinyarada asoo jidka marayo waxa waaye sharaftiisa kalaamadiisa meel looga dhacayo oo cay loogu darayo wili oo leeyahay vito ta Soomaaliya takana coronavirus oo lagu bahdilayo waxaasoo dhan dadkii ka dambeeyay cawda miiska soo saaraha hadii la yiraahdo annaga waxaan u taaganahay Soomaalida markada u taaganahay waxaan aan xooggeena dhacankeena maalkeena waxaan ku bixinaynaa Soomaalida Helsinki sharafta laga qaada aan soo celin hadii la yiraahdo 12 kun 12 kun maanta Helsinki dhax fadhiso Soomaalida annaga waxa waaye masiirkooda maanta ka hadlayna walaalayaal annaga qabiil annaga kuma kacsanin shakhsina kuma kacsanin shakhsina xumaantiisa inaan sheegno ma rabno laakiin 12 kaas kun 12 kaas kun oo maanta oo ajaanibta finishko dhan waxa waaye guryaha ku sheekaysanayaan oo la leeyahay Soomaalida Soomaalida masiirkooda miiska saar masiirkooda ka hadlayna cawda hadii la yiraahdo insha Allah taala marka waxa waaye qofna anaga ma dhibcin qofna kuma kacsanin laakiin runta idin sheega cawda hadii la yiraahdo insha Allah نور واكو سلام نور from US كلا يا كو سلام نور واكو سلام دمان سو دواده برنامجka bilaabeyna insha Allah barnaamijka bilaabeyna xogaa ilaa 400 qof dadkaas soo buuxiyaan oo bilaabeyna barnaamijka xirkada bilaabeyna insha Allah waxaan aad iyo aad u faraxsanahay in mataqaanaa fiilan ay noo soo baxeen aniga muddo 3 sano u qaadatay inta qiilinay laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay inay noo soo baxeen dhalinyaro oo wadankan ku kortay oo maanta xoogooda cunay waxaan ku faraxsanahay gabdhaha oo hooytayaal oo nurse ka shaqeeyo oo mataqaanaa shaqada hataa joogi waayay ayagoo daaweynayaan waayeelada finishka ayagoo daaweynayaan waxa la leeyahay cudurka guriga ka soo aan oo keenta leeyahay hadda waxa way riski waxay u qaadanaysaa inay badbaadiso finishka risk u qaadanaysaa gabadhaas walaashayna Soomaaliyeed markaas waxa loogu daraa bahdil iyo caaya loogu daraa aadan soo dhawow markaas waxa loogu daraa bahdil iyo caaya gabadh walaashayna loogu daraa marka gabdhahaas oo dhan waxaas ka damqaday ragga dhalinyarada oo ilmahoodii maanta 4 jirka 7 jirka 8 jirka oo iskoolka oo mataqaana koowaadkii galaaska markay aadeen oo lagu dhahay mataqaana bax guriga ku noqdo maskiga soo qaatay maxay yeelay cudurkii wadiin taasoo macnaheedu ka dhigan tahay in Soomaalida waxa waaye aad loo bartilmaameeyay marka waxa waaye in aabayaasha ilmahaas dhalay gabdhahaas mataqaana cashuurta bixiyo isbitaalada ka shaqeeyo xanaanada hooyada ka shaqeeyo dhamaantooda waxay u istaageen inay badbaadiyaan Soomaalida 12 kaas kun maxaa yeelay Soomaalida ururada dhan waana badbaadi waayeen waana difaaci waayeen marka waxay noqotay inaan annaga isu garanno isxilqaano iska u qabsano oo urur samaysano oo samaysano wax la dhahayo community na samaysano oo community waxa way Soomaalida fiilana community ayaga community ayaga ismaamulayo hooyada isba joogto hooyada faanta joogto hooyada Helsinki joogto ayaga ismaamulayso warkeeda lageysana warkeeda la maqlaa ninka baska wado ninka taxiga wado warkiisa la maqlaa maxaa yeelay waxa way 20 sano waxa way aan la caynooya 20 sano la bahdiloya 20 sano waxa la fadhinaa in mar walba lagu soo qoro qof ka hadli karo qof juuq dhigi karo ma jiro maxaa yeelay walaalayaal anaga ma hadli karno isma difaaci karno waxa isku difaaci karno waxa way meeshan warqada yaal kun jara idin sheegaan haddana warqada idin tusdona meeshan warqada yaalo oo Soomaalida waxa lagu qarash gareeyaa 2 milyan iyo 1 milyan lagu qarash gareeyaa 800 oo kun 700 oo kun oo euro Soomaaliya talasi labada sano ugu dambeysay maxay ku qabatay wax ugu qabatay Somali development jira aydan kala sheeg meesha u socdaan kala sheeg 250 la siiyay fanto kaabunki Soomaalida ka shaqeyso oo jaaliyada leh waxa la siiyay 350 kun la siiyay asbo sidoo kale ayaan lacag la siiyay waxa soo dhan waxa way lacag waxa way oo shacabka finishka laga qaado way oo masaakiinta laga qaado way waxay idin faahfaahinaa marka hore dadkaas inaan sheegin waxay idin faahfaahinaa ina anaga qaldana idin faahfaahinayo walaal wax la qarnaa ma jirto walaal nin walba Soomaali oo damiirlan ka hadlaa moogtahay oo dadnimo Soomaali ma ku jirtaan ka hadlayna anaga maanta haween lagu macaynayo daarood lagu macaynayo isaqna lagu macaynayo maanta waxaan lagu caynayaa the Somaliland looya Soomaalidan looya maanta meel walba lagu soo qoraya maanta heer waxay gaartay nin xun oo shalay caynayo Iraq oo xildhibaan baarlamaan amaandina difaaciyo macnaha waxa way gudnimo ka weyn ma jirtabo nin Iraq oo shalay nacay oo shalay nayasay oo jaraad lagu soo qoray maanta intuu midii soo fadhiista cawada wuxuu yiri asoo xildhibaan baarlamaan Soomaalida wuxuu yiri ana difaaciyo Soomaalida
أو حلبان كنا دجان كنا أو الرضين أو أنت كبحين ما أنا جنوها يعني ما إحنا قبتنا أنا هذا يسن هذا كرين يسن هذا كرين أنا ورقد مال وصو قرايو ورئيس أفكار كبحنا واحد معنا ما سمينسو واحد معنا سمينسو ضدك السوسايتي الصومالي ده هلسنكي أو السحرة معنا سمينسو يعني وحاول دليلا صومالي ودليلا إلهي قبيلة الله كمدوبي قبيلة الله كمدوبي قبيلة فعل كرمت ما أنت عون جينا ما أنت تصلوا حينه قبل ما أنت تصلوا حينه قبل هويت إيه أو ما نصدق كل شيء مغلق أمان شرفت لقى قاس استار شرفت لقى قاس وحد هذا وحماي وحفيلان كصعد والله بالله الله وحلقة قدم قضوي وحد الله قدم قضوي qarxiska raggaas iyo golaha dhexe ay idin sheegay waa soo wada degdegin waa soo wada marka hore waxa wada guubaabinta Soomaalida filan in la guubaabiyo waa in runta loo sheego in la guubaabiyo way walaalayaal heerkaas aan marayna maanta duqa intuu madii soo fadhiista ma dhihi karo raalgelina bixina ana runta idin sheegay wuxuu soo dhihi karin warqadu miisto saara wuxuu leeyahay helsi kaabunki waxay bixisay hal ku dhawaad hal milyan oo euro bixisay laba sano ugu dambeysay macna waxa idin sheegaya duqa helsiga markaasna idan naga saxsay in sheegaya wax oo boorjas bixinay malcawada ku saxda ku soo toos maxaa yeelay hal milyan meeshan taal hal milyan oo euro meeshan taal oo laba sano ugu dambeysay oo la bixiya meeshan taal wuxuu leeyahay Soomaalida lacag ma siinaba anaga marka walaalayaal 20 sano lacag la qaadinooya oo la iska dhuuqooya hooyooyinka waa dhiban yihiin ilaa ma ka cabsanaya qay dhalinyaradu waa dhiban yihiin maanta waa kaas hadii hataa la isku xiri lahaa oo maamul iyo system aan samaysaneen maanta waxa waa dhalinyaradu waa difaaci lahaayeen waxa waa mataqaana looyaraan qabsan lahayn waxa waa iska cili karnaa laakiin maanta waxay ku soo biyo shubatay in mataqaana xildhibaan oo carab ah oo shalay nacaayay inuu maanta madii soo fadhiiso finishka ay dhageystaan ودو سوماليدا يا الريحن وير سومالي يا الريحن وير مساكين واي والله بلا تلاساس وير والله إنا لله وإنا إليه راجعون هركاسا ما أنت مرينا قلني ما كوي ما جرت والله ورتا إذا شجع والله سومالي رنتون عبيه سومالي رنتون عبيه marka aniga iyo dhalinyarada maanta ka aad iyo aad u mahadsan maanta had waa kaas kuna marayna 2 kuna noo hartay bari waa gaarsiina dileen 3 miiska u saaran tahay Ilaahay raada jimcaha iyo windiga isniinta miiska u saaran tahay duqa helsiga Ilaahay raada anaga kama rabno in aborjas kama rabno laakiin waxaan tusinaynaa 3 oo Soomaali 4 oo Soomaali ah inay magaalada helsiga joogto arinta oo lagu dhaqaaqay wuxuu sheegay inay qalad tahay anaga intaas tusinayna Ilaahay raada marka waxa way gabdhaha noo soo baxdayna noo soo baxday waxa way hooyooyinka la isku xiraa Helsinki Fanti iyo mutaqaana iyo Esbo waxa way markii corona laga baxsay ana qabsanayna guddiya la sameysana Soomaalida waa la tirkooba ilaa beer ilaa Turku waa la tirkoob sax la sameeyna waxaan ku dhahay qof walba iyasan waa qof walba magaciisa miisiga isku gashana qof kasto wadanka ku dhibaataysan waa la difaaca hadii la yiraahdo jaalid la sheegay taas way ururka la sheegay kaas way laakiin urur aan dad difaaci karin jaalid aan dad difaaci karin urur ma jaalid ma noqon habeen ma qoran maalin ma noqon ma absolute ma noqon karaan walaalayaal Soomaalida tirkoobka oo taasoo mustafi markii tirkoob la sameeyo maanta waxa way rajada ma fiican tahay maanta ka heegsanto hatta milki waxa marayna oo soo makan saayisno haysta oo heegsanto hatta 9 kuna marayna maanta la shafir soo haysto very powerful wadankan aan ku leenahay maanta waxa marayna in mataqaana weeran ala kumin ton iyo waxa way ku dhawaad 10 kun wax dhiman ina maanta wadankan aan ka shaqeysno very much aan ka nahay ganacsi wadankan aan ku leenahay shirkadaha wadankan aan ku leenahay oo dhismaha laba shirkadood dhismaan ku leenahay waxaan ku leenahay mataqaana tagaas shirkadaha leenahay waxa way awood waa leenahay anaga awood waa leenahay laakiin golahan dhexda ay soo wado asaas u hayo Helsinki iyo Finland Soomaalida raggaana asaas u hayo raggaana idin sheegi doona hadii Ilaahay insha Allah taala walaalayaal masiirka Soomaalida Helsinki oo ah kaksi toysta tuhata oo hooyooyin noo joogan oo ilmo korsanayo maanta u baahan gargaar u baahan gabdho noo joogan oo maanta shaqeysanayo oo ka shaqeeyo social alan iyo interface ala ka shaqeeyo dhaqaatiirta oo isbitaalada ka shaqeeyo mataqaana in dhalinyarada basaska wado dhalinyarada tagaasida wado dhalinyarada xoogooda dhacankooda cunaayo iyo dhalinyarada iskoolka noo dhiganay ardayda ah ilmaha yaryarka oo dhan masiirkooda maanta miisku waxay u saarayaan Soomaalida Helsinki miisku saarayaan maanta
nin walba oo Soomaali dhalade maanta mas'uula ka saaran walaal mas'uula ka saaran ani waxa ii soo bandhigay labadii sano ugu dambeysay ka soo tag saysan toysta ka soo uursan toysta inta oo urur lacag la siiyay oo aad hindina ku aragtay lacagaas hindina ku aragtay idinka marxaati ka noqonay marka maanta ma dhigi karnaa yaan fooriyo kaali waxa way apologize bixi ma dhigi karnaa su'aalaha ku soo cilna anige hal warqado miis soo saaraan ugu filan ana runta ii sheegay Soomaalidu doon cibiin ugu tahay Soomaalidu doon cibiin wallahi hal warqado miis soo saaro aan ugu filan oo dhow Soomaali 700 kuna siinay Soomaali development waxaan siinay 300 siinay SBO waxaan siinay intaasaan siinay faant intaasaan siinay aw maxay ugu qabteen dadkooda maxay ugu qabteen haduuna dhaho su'aashaas laga ma jawaabi karo wallahi bilaan ina laga jawaabi karo maxaa yeelay hooyooyin badan iyo gabdho badan waxay u baahan yihiin konto u baahan yihiin sababtu u baahan yihiin walaaliyaal habla qabsiga dalka iyo dadka waa very important waa dadkaan lacag ku qaat oo waxay dhaheen waxa waa anaga wax u qabanayeen hooyooyinku wax u qabtaan qabiil lagu mashquuliya taas waxay keentay marka in ayaga dhaxdooda isdagaalaan taas waxay keentay marka in dhalinyaradan cusub iyo dadka imaanaya inuu xanaaqo dhaho war adiga maxaa ku dhibaa aniga urur sameysana nin walba urur sameystay marka taas waxay keentay marka in anaga dhan aan kala socono isku xirin macna isku xirin waa kala soconaa tan waxa way dardaaranka waa marka anaga iyo dhalinyaradan waxaan u istaagnay waqtigeena u huraynaa badbaadinta iyo mataqaana masiirka 12 kun maanta Helsinki Soomaalida degado oo sharafti karaamada laga qaaday anaga u istaagayna cid ugu hebaysanayna anaga qof aan nicnahay ma jiro qofna anaga macaaneyno laakiin waa xisaabtameen wala xisaabtameen meesha dileera meesha wadanka sharci ka jiro wadanka nidaam ka jiro marka aad waxa rabto cun aniga wax laga galmala anaga laakiin magacayga Shariif iyo magaca Maxamed iyo magaca Cabdi iyo magaca Saadi iyo magaca Ayaan iyo magaca ilmaha yararka masaakiin iskoolka dhiganayo oo la caynayo wallahi bilaa tala kaama yeeleen ina magacayna cunta kaama yeeleen kaama habeenka kaama yeeleen maalin kaama yeeleen adduunka sidoo hore maaha ururada hadda la hadlayo adduunka sidoo hore maaha waa ogahay inay firsanaysiin oo ogahay adduunka sidoo hore maaha adduunku waa isbedelay filan waa isbedeshay filan dhalinyarada soo kacay oo inta wax ku baratay wala xisaabtama ku saxda ku soo toosada dileeraad walaalayaal waxaan faahfaahinaa golaha dhexe idin faahfaahinaa intaana gelin raggaas aan qarxin magacyadooda iyo mashruucan fashilmintaan qarxin waxaan idin faahfaahinaa golahan dhexe maxaa waaye walaalayaal golahan dhexe waxa waaye niman waxa waaye ku heshiiyey mataqaanaa waxa waaye jaalidaha lambar 1 jaalid Soomaaliyeed gacanta ku dhigeen 2001 ay gacanta ku dhigeen ay isma soo sharaxayaan gudoomiye ma dooranayaan isma soo sharaxayaan mataqaanaa maamul ma rabaan marka waxa waaye shanta golaha dhexe waxa waaye waxaan u badan hawiye daarooda u badan isaaq waa ku yahay isaaq aad ugu yaryahay hawiye daarood bis le u badan qabiil kale ma ku jiro qabiilada kale hataa ma ku jiraan halal koox ku jira bis hawiye daarood le waay marka shantan golaha dhexe 2001 iyo 2002 ee waxay gacanta ku dhigeen mataqaanaa lambar 1 horta jaalid Soomaaliyeed gacanta ku dhigeen marka jaalid Soomaaliyeed yarkan hadda jooga Maxamed Maskiinka iyo kii hore jooga hataa Saciid Laayo ayaga maamulay marka masaajidka imaamka masaajidka ninka hadda sheegi doona imaamka masaajidka dhan saasi gacanta ku hayaan meeshay geliyaan macnaha remote control way xildhibaanada deegaanka remote control way nin walba oo magac kule Soomaalida ay jecel yihiin waa isticmaalayaan ayagoo markaas u sheegay mashruucaas qaadanaysa ha iswal wali Soomaalida anaga ka naqaano leema kan anaga inoo xiran yihiin ilbaabada anaga inoo xiran yahay ciidamada masuuliyadda soobo ciidamada mataqaana booliska iyo wasaaradda anaga maxaa yeelay markii la weydiiyo wadanka sharci waa waxay leeyihiin dadka waa kuwana liisay keenayaan qof walba meel u jooga macnaha golahan dhexe waxa waaye niman waxa waaye ka kooban 7 nin waay وادين فافاينا رجاس يشوفوا دون لكن أنا واحد يشجع مقاعد واحد يشجع مشروع فشل مي محيرة تصبح معنا معنا سميناش مشروع أنا يشوفوا هذا فشل مي أول ربع إلا مريو أو لقد عدي أو تي في لو يقول لو ولا حاشي أو أنت لو قرش للسيو ولا حاشي والله صوش أنا يشوفوا دون ولا حاشي وحبك أساس مو قاسك لكن إن برنامج كاس الربع الصومالي اللي جوا يجي واحد أساس اللي جوا شيء كي أو تلفزيون صوت ما يلي أساس وكو قلادي لكن ما لدي أساس قشان وده واحد وحبك مو مركا وعلى ربع تلفزيون كلا سوق هذا ولا بيستفيد لو وريستو أو لا تجا صومالي ده لصور وريست صومالي حالة ده اللي تركابه هذا مشروع نوع أساس سعودي وأنا فشلمي رجع أيضا قرحي دونا هدقين لك هذا واحد فينا قول ده حد فينا ولا ليال
nimankan golaha dhexe waxay qabsadeen 2001 qabsadeen marka waxa way waxay gacanta ku dhigeen Soomaaliyeed gacanta ku dhigeen waxay kale gacanta ku dhigeen mataqaana waxay gacanta ku dhigeen urur kale ee markaas ayaga furteen kadib wadanka 2008 2009 2007 waxa soo galay rag Taataaniga soo galay oo arinta rag badan oo Taataaniga siyaasadu kuma jirin in urur ma rabin ayaga laakiin rag markaas oo active aha oo wax barto Soomaaliya wax ku soo bartay oo Taataaniga markay imaadan ay arkeen in mataqaana oo hawi daarooda markay arkeen xaaladda markay arkeen ay u arkeen inay dadkan ay qatar yihiin waxa way qaarkood waa ka bixin urur ay sameysteen taas waxay ka marka urur ay ururada wadanka wuxuu bato walaalayaal hada waxay faafaanoo gola dhexe faafaanoo iyo sababta ka dambeysay in mar walba Soomaalida la ceebeeyo oo joornaaladan lagu soo qoraa idin faafaanooya shantan golaha waxa sheegay nimankan golaha dhexe ayagas bedelayo marka markii Soomaaliyeed oo doorasho la sameeynayo ayaga waxa way dad ay keenayaan meesha dad markay keenaan waxaan ku dhahay dadkaas waxay mashruuc u ballan qaadayaan magaalada ay galayaan dad ay soo ururnayaan magacooda la keenaa magacooda markii la keeno magacooda la qaada waxa la geynaa dawladda loo gudbinaa socialka loo gudbinaa socialkana liisa u yaalo wasaaradda arrimaha gudaha liisa u yaalo booliska liisa cawada waxa ay fiirsanayaan niman jaajuus horta marka aan saan u hadlayo walaalayaal dadkiina wax badan mid ay faasina inta shaqada dhameystiran aniga idin fahansiina ani waxa ma qaadi karaan sababta idin sheegoy aniga sharcigan soo aqri dastuurkan waa tan koranka soo aqri qaybta janibta koranka aqri waa ta idin sheegay aniga waxa ii soo hanjuubi karaan waxa waaye hadda waxa fiirsanaa jaajuusina ay fiirsanaa walaalayaal wadan kasta waxa u shaqeey jaajuus u shaqeeyo sida ogtiin oo Soomaaliya dhalad ay isu joogaan meel kasta joogaan macna adduunyada ka jirta macna qoobid meel ku badan jaajuusa dawladdu u shaqeeyo jaajuuskaas asaga wax ma qarxiyo wax ma sheego in ma ka daba shaqeeyo kaliya wuxuu ilaalinaa constitutionka iyo nidaamka dalka iyo dadkaas oo kala ilaalina marka waxaan ku hadli jiro dhan oo ogyihiin jaajuusinta oo ogyihiin marka asaga hawshiis waxa waa inuu fasiro waxaan ku hadlayo markuu fasiro waxa leeyahay war ninka waa nin oo dadka wacyi gelinayo way nin dadka wax u sheegayo way wuxuu ka hadlaayeen wax asaga ka hadlayo ninkan yaa way ninka waxa waa shariif way waa nin hooytay ka shaqeeyo nin waxa way oo cashuur bixiya oo meel degan waxaan uu sameeynaayeen wuxuu u sameeynaa fabahay tosti u sameeynaa macna waxa way fabahay tosti oo waxa way oo wacyi gelina fabahay tosti koto tumisa fada soo tumisa way waa meesha aan dhibcaha ka qaadanayo waa sharciga idin faafayna mugta sharciga idin faafayna marka dad badan waxay leeyihiin waxa urur sameeyay waysay waxa uu sameeyay waysay hada urur sameeyay laha uma hadli leen hada urur sameeyay laha maanta Soomaalida fiilan isku mixir leen hada urur sameeyay laha Soomaalida maanta horumar ma gaari leen hada urur sameeyay laha Soomaalida uma faa'iideey leen wallahi wax jira isheego marka aniga waxa waa si ogaabo inaan san u sameeynayo maxaa yeelay maanta waa kaasa dhalinyara kacday iska qabsa u kacday dirkooba la sameeyna Soomaalida la aruurina hooyinka waxa laga dhaadhicina annaga fiiska qaadayna annaga wax iska bixinayna shil dawladda ka maran dawladda waxa anaga feero maksiyana wax ayna ka rabna mal wax ayna ka rabna marka la qabsanayo xaflada waaweyn iyo waxaas leen ugu caawiyo shil idin kamar waxa idin kamar anaga dadkeena wax barayno haddaba aan 3 sano jooga 3 sano aan dad wax barooyo aniga idinka marxaad ka noqonay hay iyo waxa ugu sii qof waxa ugu siin dhalinyaro badan hadda fikirkayga qaatay marka ani marka xigmadda uu sameeyay saas ay hadda ay faantay Soomaa meeshii kaliya looga dagaalamayo ururadan iyo tuugadan waxa way marka hore warta fabaay tusto waa inuu kacdo adiga iska u qabso waa inuu istaagtaa oo maalkaaga dhacanka waa inuu ku bixisaa kadib natiijo imaanaysa natiijada maanta waa kaasa Soomaali badan maanta niid u dhisan tagaasi badan oo basrayaal badan iyo dhammaan waxay ugu taageersiin waxa way dadaalka iyo daacadnimada wax ugu qabanaya dadkay ugu taageersan yihiin taasoo macnaheedu ka dhigan tahay in qof walba uu sameey karo marka حكمة فيري مركا شرعي الدستور كذلك فيلا وحقرة إن قفك أو موادنك أو ودنك أو شرعي وكل دتكيس هتو حقوقنا أو ولي حتى كنت تفضل أي توستا فدي الله قعنت على غش منها وحكست وقهله ولا عبنا ميزان على صارا نيكا محب فايدو كينو برشيد محب فايدو كينو يا نيكا محب برشيد خسارو كينو يا عوض جاجوسنا في سنة مانتاني والترجمة يعني wax laga qaadi karo male xitaa dadkan karbaashay wax ma laga qaadi karo waxa la dhigaa sanaf baasu ka hadlo anikan xitaa mar qof ma karbaashay xigmad ma shaka hadlaa fiiri laakiin marka urur leeyahay iyo marka oo isoo galo mashruuc oo dadka aan wax ku raadsanayo hadaan wax karbaasho waxa leeyahay ninkan ujeedin waxa way ad urur leedahay dadkan kale urur way maxaa ku galiyay adi ururkaaga hoshiisa aw warqadaada aw ana laga daba shaqeynaa laakiin hadda laga daba shaqeyn karo urur ma balihiba aniga waxa oo dad aan wax ku qaadanayna ma bajiro marka meesha aan ku cabirayo oo aan wax ku sameeyna horta saas way maanta markaas natiijada gacanta ku haystaa alxamdulillah shukr baamin ma hada silaha iskale taas waxa way hadda idin faafaynay way marka wax kasto meeshan waa la fadhiyaa dad fadhiyo waxa waa qorooyin taas ogaado horta okay arinta dhameystirina walaal dadkan golaha dhexe
2001 2002 Soomaaliya gacanta ku dhigeen waxay sameeyeen ururada kale ayaga macnaha magacaabay taageerayaashii dadka cawada fiirsanayo dadka wax soo qoray caytama idinka fiirina waa fahmi kartiin waxay la caytamayaan subjectiga iyo programka aan waday waxay isku dayeen inay iga bedelaan maxaa yeelay sidaan soo wada waxa waaye waxbaan ka shifooya ma taqaanaa in idinka ka walwalina aan wax ku ana ka adag taas idinka ka walwalina idinka dhageysta wax la soo qora laag iyo shar la saar bis diilaadan insha ku ana ka adag marka walaalayaal nimankan waxay sameeyeen dawladda u tageen waraaqaday geysteen meel walba waraaqaday geysteen hadda waxaan sameynaynaa waraaqadiyaan ka daba qaadanaynaa waraaqadiya laga daba qaadanaa ururadii waxa waaye waa ka daba qaadanaynaa magacyada la qori doono hadii la Soomaalida waa la tirkooba war Soomaalidan u adeegaysid oo wax bogcooda ku qaadanaysid waaba kuwanaabo wax aan rabno anaga waxaan rabno male anaga waxaan la dhahaa Soomaaliya saasaan la dhahaa anaga intaas kunaan nahay kun minanto hata visto isa to hatta Soomaali ka saraysa anaga nahay wax social kaarabno male dawlad wax kaarabno male constitution iyo sharciga dalka soo qorayo anaga inaan nahay urur taagan oo jiro ma qorayo waana kana anaga waxaan anaga iska baxsanayno fi member intaas member nahay anaga golo dhex soo dooranayno anaga deegaan soo dooranayno xildhibaan deegaan soo dooranayno anagana soo dooran laakiin hadda hooshaas hol oo dhow ma ahan xildhibaan deegaan hadda waa idin sheega intaan dadka qarxin xildhibaan deegaan oo baarlamaan ah soo ceebeenin doorashada soo socota oo deegaanka ah oo had soo socota isku soo ceebeenin hadda waa idin sheega aniga cid idin dooranaysa ma jirto codka waxaa loogu shubaa finish oo lagu kalsoon yahay codka loogu shubaa nin walba cawda maqlaayo doorashada kale soo socoto taas Allahna gaarsiyo oo baarlamaanka Allahna gaarsiyo taas ma dhaw saddex bara dhimanay laakiin midaan deegaanka ah cid aan siinayno oo Soomaali ah ama faanta ka soo gal ama isba ka soo gal ama turku ka soo gal walaalay adeeg ku taala laakiin Soomaalida anu waxa la way ninka muwaadinka oo dhaladkan ka hadla aniga oo Soomaali oo dhig Soomaalida ku jirtaan ka hadla oo maanta waxaan lagu sameeyay oo ka damqana aniga ka hadla ma nin qabiilista oo meel fadhiya ma ka hadla qabiiladu wax taray maanta qabiil ugu macayno walaalow waxa lagu caynooya Soomaali lagu caynooya waxa lagu caynooya Soomaali lagu caynooya waxa lagu caynooya Soomaali lagu caynooya wax macna ma ku sameeyay qabiil wax macna ma ku sameeyay xilibad deegaana maanta wax macna ma ku sameeyay waa kaasa maanta nin Ciraaqi oo shalina caynayay oo joornaalada lagu soo qoro lahayd ninkan Soomaalidu bahdil Soomaalidu sharafta ka qaaday oo la dhahay maanta madiiso fadhiistay oo intifaac fadhiya looga kacay asal qiimeynooya wallahi bilaa tala madiyaash fishka dagasho waa yaabaysi asal qiimeynooya aw xilibaan deegaanka aw xilibaan deegaanka waxay kamid tahay fashilkan haysto hadaanay Soomaalida fiilan ay kamid tahay macnaha qabiil aficin naga reebay runtii soo shaqo moogtahay qabyaalad iyo qabiil aficin naga reebay wallahi bilaa tala qabiil iyo qabiil aficin naga reebtay maanta miraha haysto muxuu yahay ninkaago hawiyaha ama daaroodka ama jiro ama raxmarka oo maanta Helsinki joogo ama fiilan joogo oo cawada fiirsan doono walaalo maskaxda ka shaqeysii ta dukato maskaxda ka shaqeysii miraheeda maanta gacanta maxaa ku haystaa Soomaalinimada miraheeda maxaa gacanta ku haystaa waxa gacanta ku haystaa ceeb fadaxa gacanta ku haystaa maanta taas waxay ka tahay marka anaga inaan member sameysano golo dhex sameysano anaga isugu imaano horumar aan gaarno waxaan dooranaynaa dhalinyarada wadanka ku dhalato ku kortay oo maanta isbitaalka shaqeynaayo gabdhaha nurseska gabdhahan ma taqaanaa oo socialka shaqeynaayo dhalinyaradan oo dhaqaatiirta ilaahay dadlaan ma dhigin ilaahay guriga ma dhigin maanta Helsinki iyo Finland waxa noo jooga rag wax bartaan noo jooga rag cilmi leh noo jooga oo maanta wax noo tari karo golahan dhexe 2002 gacanta ku dhigeen Finland Soomaalida Finland gacanta ku dhigeen meel walbo qof u joogo oo qabiil ay dadku waxa uga sheekeenayo Soomaalida ayaga soo dooranaya ururada kale ayaga sameeyay faanta ayaga ka dhisay isba ayaga ka dhisay tambeera ayaga ka dhisay wallahi wax jadasho illa gobolada ayaga ka dhisay meel walba awood ku leeyihiin waxaasoo dhan waxa dhan ujeedina 7 nin waay ujeedin nin walbo daba galane oo daba kacane waxa way ka daba shaqeynaa hadda kor waxa daba galay meesha ka xusaayo wallahi waligeena isma arkin wallahi waxa ugu dambeeyay shan kor ugu dambeeyay ninka maanta ay sheegdoon inaan waliga arkin Ahmed Tawxiid Allah nin heeyaaska isku aad maskiin si u daba galeen inta u galeen wallahi bilaa ina been sheegeen wallahi asal wuxuu kooga ma lehen nimankan waa niman waxa waaye oo wadanka waxay joogaan
labaatan sano soddon sano iyo waxay joogaan 15 sano ay joogaan intaas u dhaxeeyaan niman tataaniga ma ahan nimanka hore waa nimankan laakiin nimankii hore ma qaar 2000 ay soo galeen qaarna 98 ay soo galeen waa niman haddaad aragtaan wallahi ina bad sheegan wallahi nimankana waxaan sameeynayo inaad dhihin maxaa yeelay ayaga Soomaaliya shirkooda ma tagaan meelaha kale ma tagaan maxaa yeelay ninkan gadaashaadu taagan ninkan gadaashaadu taagan waa sida ay carabta iyo Afrika Soomaaliya si ku yiino kala waa si ku yiino kala nimanka si ku yiino kala waxa idin qarxinaya cawad waxa idin qarxinaya golaha dhexe oo mataqaana awood ku leh maxaa yeelay Finland dawladahan iyo booliska iyo mataqaana deegaankan oo Helsinki Kaabunka iyo Fanta Kaabunka asba Kaabunka waxa warqad u yaalo golaha dhexe oo mataqaana oo Soomaalida wallahi wax jaad shooga wallahi Soomaalidu masaakiin ka tahay meesha masaakiin ka tahay wax ka tahay mal wala keena afar kadib nina la keena kee arkan waa burna ko kale keensanayaan waa nin iska taagan oo magac loo sameeyay waadi kan ku xigabo wallahi wax jaad shooga wallahi wax jaad wax ma qarinaayay wax dhab way كما قال هذا كما قال نيو كاميرا لايف كي صح وانيو هداينا سميد علي runta way kaamirada xogaa qof si kale ka dhigaysa laakiin marka la sameeyna insha Allah barnaamijka aan dhamay hadda kama gaaray waqti ma haystay walaalayaal arinta ma isticmaalaysa doorasho kasto la sameeyay ayaga way masaajidki ina beesha kulay masaajidki gacanta ku dhigeen masaajidka baasir saasi gacanta ku dhigeen masaajidka raabadada saasi gacanta ku dhigeen raabadadii dartoodii carabtii Soomaalidu isku dhex dagaaleen masaajidka takaskus wax walba ku sameeyeen wax kasta sameeyeen gacanta ku dhigi waayeen wax kasta sameeyeen ku dhahay wax kasta sameeyeen gacanta ku dhigi waayeen waxa marqaati noqonay hadaa been ka sheegayo masaajidka takaskus mas'uuliyiintu marqaati ka noqonay hadaa been ka sheegayo in laga daba shaqeeyay oo inta loo galay oo dadku u galayna ay dad korka yaqaan ay umeeyeen in dad fiican yihiin u maleynayeen nimankan waa nimanka waxa waaye keenay in mataqaana Soomaalida dawladda Finland iyo booliska ka dhaadhiciyo Soomaalida anaga aqoon u leh Soomaalida ma taqaanin Soomaalida qabiilo waalay Soomaalida qabiilo aaminsiin 99% Soomaalida wax ma qoraan wax ma akhriyaan hooyooyinka waxa waaye hooyooyin lagu soo koriyo waaye mataqaana baadiyaha isduurka lagu soo koriyo waaye kuligooda waa wada gudayiin heer baadiyaal waaye waa wada doqomo wallahi wax jira insha Allah waa dadka Soomaalida dadka dhaadhici ayaga naga dhaadhici wax naga dhaadhici dawladda dhan wax markinood إذا ما أركنا إذا مسكحة كشخيصي ولا ليال مقاركنا جناب كل قصة قرية ماركنا هذا جناب كل قصة قرية فيه وحلو ليه سومالي ذا كنت تمسك ولي ما يسمى فهمين هذا اللي بعد السنة هاي دل الشارع دكان كمركي عايز كل يدا بحث هاي مسكين تا والله بلا تلا أركوس كل يدا أدو متقنا كل يدا صوص عطو أو دكان كسو هذه قتا وحواي ودك فهمت ولي هذا وحنا كلنا هويدا أو معمدا أو سومالي أو إيش عن كلنا محملنا نسا هويدا دانيرة دا هويدا أو قبل محملنا نسا maxay yeelay Soomaalidan kale waxba ka moogo marka dawladdu waxay rumaysanayaan runa u qaadanayaan marka saasay gacanta ugu qabteen laakiin maanta waa idin ka daba qaadanaynaa toosha idin ku aftiiminaynaa wallahi waa idin dhaartay oo bilaa waa idin dhaartay wallahi 8 kun iska dhaaf 10 kun aan marayna maanta meel waa idin ka daba qaadanaynaa warqadan meel walba dhigaynaa meesha galeedan aan idin karaa nimankiina gola dhex meesha galeedan idin ka rabaa diila yiraahdo walaalayaal nimankan golaha dhexe waa niman hawi idaarad badan waay qabiilahan ay sheegaan moogti nimankan waxa mar kasta la soo adeejinaa oo dadka laga gadaa ninku kalaan dheersay macnaha masaloo kale laftaan qof kalaan dheermo laakiin toobadan nin intooda badan hawiyaha qabiilada lafa yar waay mar hawi marka abgalka markay noqoto adigu ku amartay oo maxalla abgalka la dhashay waay habar gidirta lafa yararka waay wax jaad shooga wax igama qaray mugtay majaartaanka markay noqoto lafa yararka waay markay noqoto isaaq ma ku jiro meesha halko lagu jiro asana lafa yararka waay waa nimanka waxa waay very power awood ku leh waa idin shooga mugtay marka waxay adeegsanayaan laan dheeraasha la adeegsanaa waa sida dawladda Soomaaliya ka jirto kale waay waxaan ku dhahay naarta qof binaa naar ku dhaarna ma jiro qof binaa naar ku dhaarna ma jiro macna waxa raba inay idin aaminsiyo naartan ku dhahay naarta Allah igiliyan ku dhahay waxa sheegay wax warqadaha hay aniga wax idin ka qarnay mal wala wax idin ka qarnay mal wax runa idin sheegay wax qiimaha idin sheegay maanta riska idin qaadanayo maanta aniga laakiin waxa idin qaadanayo sharciyan qaar waxa idin qaadanayo aniga nimankan golaha dhexe niman noocaas waay
labadii kun iyo labadii ay sas gacanta ugu qabteen masaajidka Basilo aad u jeedin waxa sas u gilgilaa ayaga way meelaha shirarka markii la tagaayo waxa markii la tagaayo nimanka sas u gilgilaa ayaga way xildhibaanada deegaanka ah meel walbo waxa sas u qabanaa ayaga way maanta Cabdiraxmaan Husu waa sheegi doona Cabdiraxmaan Husu mashruuciisa sheegi doona Cabdiraxmaan Husu waxa fashiliyay oo ceebay oo god ku riday ayaga way إلهي وأجي أسيق وأجي تسمنت واحد هذا المركل ربيني يسوع عليان أي قصة سبان مشروع كله أو مشروعا كلنا لغو كله عدم هوز لغو كله مشروعا وظيفة فايدة مشروع وظيفة فايدة وظيفة فايدة دي ليلان ولا ليال نمك نوع عسوي نك رباني أديك سنايا ساس وي ساس ريموت كنترول قف كل وضولا سلطان إني قعدت قطاني ربين سلطان أيها صار أو كذا أو ديرجلي لكن سلطان وحو أركي إني نمكان أستغل فكر كيس وحأستغل ربين إني سؤال إنه كفشل ما يوارك أكجابين هدو سيدو أستغل سيد أيها ربان هدو يلي لها سلطان وحن أمسنا عوض ومغلواني مغل دوناي صدق كن أفر كن عضو هيلي لها أي وكيل لها مشروع كستو فيلان كدعايو مشروع تركو كدعايو مشروع تنبيره كدعايو مشروع كدعايو قبل كدعايو ان كامامك markii la tagaayo xilbaanada deegaanka markay kaamamka tagaayeen in ma taqaana in Cabdiraxmaan Husu markii la wadaay asad caalin markii la wadaay waxa soo dhan nimankaana amarka bixinay nimankaana amarkooda lagu socday أسد عالنا كما هل كرو قف قال لكم أسد عالنا هدو جوخله والله بيوشوا ولا عيب سبنا قال سيدا هوزو عيب ديس الله سبنا أسد عالنا قد وجه دينه سياسة الصومالية قتلكوا دايو ميز كلا صوصارا أبو ميز كلا صوصارا والله بلا ترى ميز كلا صوصارا إنسو جوك ديك إنسو كهل كرين ما كهل كرو أصلا ولا ذيك سنويا مال بشرة مال بصوماليا ولا سوف دي سنة سجنة حتى أسد ناقل الأول مسكين اسمه جلس ور طلبات سنة مرينا صوماليا محبوبة باسنته محقول لي ذنا أنت نيجي قلتنته ما ده هايو ما هاي لي ساس أصلا الله هاي ساس الله هاي عوض حقيم لا ده شو عوض سربنا عوض يقرحنا يعني nimanka waxay sameeyeen mashruuci ugu horeeyay ee weerar ku qaadeen wuxuu ahaa mashruuci wuxuu ahaa oo mataqaana wuxuu ahaa oo maxallay Soomaalida macnaha oo dadka qabiil ku taageeray oo qarash ku bixinay mashruuci ugu horeeyay 2004 2005 ku qaateen waxa faafana waxa nimanka ay faafano waxa rabaa inay idin keeno marka inay idin soo bilaabo way saa u fahantaan baasha مشروع قلا ده حيدي صوب بلعبة مشروع إذا وحيكون كين دونا مشروع ما أنت فشل مي سلقي سمحويه مركز فهم يصير باش فهم يصير رجل السؤال يجي مقعد يشيك دونا أو ضدك لغور كين أو ما أنت عبت كل أحد تاسنو يدي شيك دونا لابد يكون يصدق لابد يكون أفرت وحب بلعبة مشروع الدولة فيلم وحيدهن سوماليدان وحواي إن وحواي هبينك مسحنا أي أحد هذا قبيلة إسكو بابيان سومالي لحاجة أدران أو قبيلة إسكو دلاي دولة فيلم واقف ديستي وحالي ضد كان سوكوب بدينا ضد كان ضد مساكين ضد سومالي هو سوكوب بدينا قرش كاسو قرش على بحي قرش مشروع عز واقعتين لابد يكون يسديد لابد يكون يسقال كمركي على الشباب دلتي وحيدهن ودن كان وحاسوق قلي ترستيالا سوق قلي سida ogtiin in waarta masaajidada wadaadada qaar la xirxiray sida ogtiin ninka ogeyn hadda ogaada taariikhda in barayna waxa la xirxiray xawaalasha la xiray daabshila oo aragtay la baaray inta aqoonkeeda ku jiro waxa la baaray xawaalasha la baaray waxa sunan makana ka dambeeyay مشروع بس معناه مشروع لا بس مشروع لا بس اي مشروع لا بس اي مكان واحد كلام مربان markay arkaan dad oo wax fahmayo waxa way nin laan dheera ah waxa way mashruuc ala sameeyna waxa uu meel la qabana nin waxa khatar la keenaa meesha Soomaalida waa qabiil aaminsan ninkaas hadlay sida hadda kale turku kale waa 2017 dhamaadkii turku markino mashruuc ka socday markino hadda kale qarax ay sheegan mugtahay nimankana ka dambeey meesha maxaa la keenay Cabdiraxmaan Husu la keenay wala xaashiya la keenay waxa la keenay mutaqaana waxa la keenay maxaa la yarko kala socod laayo oo social ka shaqeeyo waxa soo dhan waxa way waa
وحواي ميس كلا صو صاري نقول بحلا أنت سقادنا ماشي تقادي وحكا قال ملادي ما أنت واحد كلا برا عوض واحد كلا برا لبعتك السنة سومالي فيلان يا عبتو إلا dad ku isweydiiyeen qof walba oo Soomaali way isweydiiyeen qof walba oo Soomaali iska dhaaf inuu geerka isweydiinayo oo tumjirka oo alaasta dhiganay oo Soomaaliga isweydiinayo wuxuu leeyahay mika fika meelan anaga maxaan nahay qof walba Soomaali way isweydiinaa su'aashaas war 20 sano maxaa u liidanaa maxaa ma ibn lagu caynoya cawada ogaanaysa hadalka waxaan taabanahay hal booliis cawada taabanahay hadii ilaahay raad walaalayaal nimankaas noocaas waay مشروعاً أو هذا أو متقانا لبدي يكون يتمني تضبطي أو متقانا مركي دولة بعضي مشروعاً هذا أو فشل ما وأي كينو دون هذا دقيقة إذا برنامج وأيدي صوب بلا واحد مفهوم تاني دولة دي أو متقانا أو محوها أو محلها أو يوها سبلا أو متقانا نمك عزلاش برسوم على القصة دري وحواي إن وحيدة متقانا إن أنا وحواي وأنا العاية وأنا ليسا دت كأنه وحنا برنايان وحنقول ده جريه كجران حيلة هايو متقانا وحلو سمح الله أعرف يا لو سمي متقانا وحواي وين يجبسين وحواي جريه إسكف فديان دل شيء ذي قاتين دولة فينلاند بيمش وطاني سوم بديك جراني هذا جري عيب يفضح يكون نقطي وحال أركي صدق كون أفر كون أو سومالي أو قبل يويل يرجع أو دل شلة أو سومن كذا سوسله أنا نقد أقولين أو تاريخ فينلاند أو حكي شيء يكرن دولة فيلان عيب يكون نقطي يا سبب دوس عيب يكون نقطي نمك عنزلاش ما علينا عنزر واي تم صون الله وذجري أو وزير كريمة دي بدها وحيجري نمك كان وحيجري ضد على الشرط الصومالي واي وحاوسمينا ويري صوت مس أمريكا وسمينا ويري مركا لا صوت سمينا الحاجة اللي بيحي وحيدي شو الحاجة أبدا اللي بيحي هذه شو مقطع أو أي شو أو تاريخ الأبد أو صومالي سيد شو أو رقدة أدي صبر هذه شو يعني الحاجة اللي سبيحي الحاجة وحلو قيبي نمك هذا الشيء قلنا دحى سومالي توعن وحدان أديك أنت شيء كل هالمليون شم بقول شيء وحلو موسيقى هذا سومالي ديفلوبمنت توعن وحدان أديك وحاشة قتا سديد بقول كون وحلو موسيقى هذا وحوعن متقنا خلق فانت وعن وحدان سومالي فركست وحدان وحلو موسيقى هذا وطي أفر أيدي صبري نمنك عنصرياشة أو حزب برسو مالان أها taageerayaashoodii xoogoodii dhacaankoodii lacagtana u jeedin walaa lacagtana u jeedin la bixinayo waa lacag masaakiin shacabka la finishka laga qaadayo way lacag oo dawladda meel ka soo qaadaysa maaha waa lacag shacabka laga qaadayo way oo waxa uu kacay anaga saas way anaga iska bixi karna anaga waa iska bixi karna anaga nin wal maanta laba yar maxay ka dhibay walaalayaal shaayir maxay ka dhibaysaa hooyada maanta Soomaaliga ah oo afarta cunug haysto guriga joogta Helsinki ama Esbo Fanta dilo dhaho maamo horumarka Soomaalida Finland iyo magacaaga la difaaca hadii cunugaaga la soo weeraro oo adigana sharafta oo meel lagaaga dhaco si barika mala oo badbaasho dawladda u xisaabtanto ilaan waxa ta qof dhalashada tahay maamo wallahi bila tala shan eris qaafan ku dhahay 20 eris miiska saaraysa 20 euro ee miiska saaraysa waxay leedahay diyaar magaceeyga waa karaan barika mal markii ay wax ku dhacaan oo qof kale wax ku dhaco ama cunugeedu wax ku dhaco dawladda la xisaabtama kaabo kida meesha la xisaabtama laakiin hadda ma la xisaabtami karo ma hadli karno wax ma sheegi karno maxaa yeelay meesha warqada yaal soo sheeg intaas oo bixiya nimankan qolada dhaxal aasas gacanta ku hayo that's why markay mar walba la caynaa taasa keent oo mar walba sharaftii karaamada Soomaaliga qaaday taasa keent ninkaas aragteen oo cunsuriga ahaa بدي أنا يسوق لنا أو حوجري ديانه هو يرقص كوا بحرنا أفرت هذا وحيد البدن العقل لو بني بركة بدن يد البدن سيد أكتي ولا لا ورقة صوب بندقي سومالي تحلسي سدد تضرب بقول يكونتم كن أو يروكاش لسي لبس أنا كلية ألسي محلوسي دل يرضى iyo hooyooyinka iyo barnaamijyada seminaarina u sameeyso ay dhiirigeliso ay ku wacyi geliso system wadanka inay barto nidaamka iyo constitutionka dalka inay barto waxa soo dhan loo siiyay maxay sameeyay marka Soomaalidu waxay sameeyay nimanka ay sheegay golaha dhexe waxa la keenay nimana la keenay dad badan awar ma qada been ka sheegay nimana meesha la soo fadhiisina camera la soo qaadana nin oo doctora meesha la keena waa qodbeena mawduuc barnaamijku ka hadla dadkana la duuba waxa dadka waxay mas'uul ka yihiin hooyooyinka hadda gooyooyinkii dhalinyaradii dadkii waxba looma qaban nimankii islaayiga meesha fadhiya hadhoor ilmoodii reerooda magac qoranayaan liiska meesha geenayaan waxay ka mid tahay dhibcaha meesha looga qaatay ka mid tahay waxay ka mid tahay sharaf xumada iyo ugu daran meesha looga maad meesha ka mid tahay maanta marka dhaw isma difaaci karno hadda isma difaaci karno duqa Helsinki wax ma sheegi karo wallahi inuu waxba sheegi karin inuu aborgasna sii karin maxaa yeelay warqadu keensan ninka wuxuu leeyahay war dadkan aad aragteen coronavirus wax ka darnaaba jirabo
laba milyan lacag ku dhawaada aan siin laba sano ugu dambeysay ka soo toosto aw intee geeyeen dadkoodina waa kuwana meelaha yaacay intaas aan ugu filan bis hadduu dhaho taas bis aan ugu filan hadduu dhaho walaalayaal nimankaas waxaas sameeyeen afartan urur ayaa lacag u qaybiyay ayagoo dhaqaaladan ay ka qaateen hadda mashruuci waa dhamaaday hadda waa dhamaaday 2020 ka la barooya hadda mashruucaas ma jiro maxaa yeelay lacagtan lacag in la dalbado way ijaarka iyo waxyaalaha yaryarowga iyo waxaas waxa way qolo gooni ah bixiso Soomaaliyeed kala ama ururada kala waxaas lacag yar way waxaana 30 dhameen way oo sanadkii loogu talo waxaas wax badan ma ana waxa kale boqolaal kuna laga hadlayo boqolaal kuna meesha la dhacay laga hadlayo marka waxaas oo magaca Soomaalida lagu qaatay kama hadlin mana rabina ka hadalno mar raga dacweysino anaga shaqadeena ma laakiin anaga hadda waqtiga maanta joogo waxaan u taaganahay masiirka Soomaalida Helsinki 12 kuna maslaxadooda u taaganahay waxaan iftiiminaynaa meelaha wasaqda iyo qurunka naga soo galayo oo 20 sano horta lambar 1 waa iftiiminaynaa waxa kale oo iftiiminaynaa inaan horta dad haysano maanta waa kaasa dhalinyarada noo kacay rag badan noo kacay gabdho badan noo kacay hooyooyin badan maanta noo joogo oo maanta raalli ah waxa waa ceebtan haysta maanta ka hadlayo walaalayaal dadka noocan way Soomaaliyeed doorasho ka dhacday yarkii hore waxa la yiraahday hooshaada waa gudatay garabka laga taabtay asoo wuxuu ilmo soo sharaxay iska baxal yiraahday ninkay keensanayaan ayagoo wax calaamadeysan yahay ama doorasho warqada beeban hala soo qoro ama yaa la soo qorin taas wax macna ma sameynayso ayaga ninkay rabaan meesha keensanaa taas macna sameynayso xilbaanada deegaanka waa isticmaalayaan ninka diido waa fadeexinayaan waxjiraada shuga warqadaha ay meelaha geysteen hadii hadda mashruuca soo socda waa laga dabageynaa waxa laga dabageynaa 8,000 6,000 oo suuma ka salaysus ah iyo Soomaali oo dhalad ah oo fiilan joogto magacyadooda sax ah waxa leeyahay socialka iyo booliska iyo ciidamada mas'uuliyadda iyo mataqaana waxaan ku hadlaynaa cawada jaajuusinta waa turjumayaan dawladda oo gudbinayaan taas aan ku faraxsanahay waxa waay mataqaana qof kasto waxa waay muwaadin Soomaali ah wadanka joogo hekartuniskiisa hala garaac adreeskiisa ma kan ma asaga ha ninka magaciisa lama isticmaali karo ninkan ururkan ka tirsanay fiu baxsano ninkan adduunku waxa walaalayaal waxaan fahansinaa adduunku waxa horumar lagu gaaray waxaan ku dhahay membership jiro waxaan ku dhahay adduunka ma jiro dad intii waa kana wax hadda haysto way war waxaan ku dhahay marka adiga community aad tahay adiga waxa laga rabaa community inaa wax bixisa laga rabaa ilaahu ma laba ay ahaato waa inaa wax bixisa markaas adiga dad tahay markaas wax iska celi kartaa adiga registrationkaas waxa laga arkaa 8,000 oo waxa weeye sana hadda meel kale ku tusina xisbida aragteen kaskusta markaad gasho waxa ku qoran satafiisu kumita kakso tu hatta kolmito hatta oo waxa ku qoran oo yasana ku qoran hadda waa yasana waxa waaye saddexdii bil laga qaadayo waa 200 ilaa 150 eer laga qaadayo way taageeral ma haya dad yasanka waa macnaha xisbi iyo community yasan waa Bangladeshka weydii Bangladesh cawd helsiik ma joogaano Bangladesh waxa dhaadeen jaalidiina meeqa bixisaan nin walba Bangladesh 2 eer 3 eer laga qaadaa indiyaanka meeqa bixisiin waa laga qaadaa dadka kale meeqa bixisiin waa laga qaadaa waxa laga qaaday Soomaalida maxay yeelay Soomaalida ma laga dhaadhicin hooyo Soomaali maanta dil loo indhana yara meel fadhidil loo warniyo kan 5 eer keen mataqaan ururka Soomaaliyeed iyo urur macna lagu taageera habeenka xato inuu ku siina waxba u sheegin adiga laakiin sida aan hadda aan sheega marka laga dhaadhiciyo hooyada marka laga dhaadhiciyo oo ninka dhalinyarada laga dhaadhiciyo waa dhiiba 5 eer iska dhaafan kooda 30 eer dhiiba 30 eer miska saara adee danku ku jirta barkama cunugaaga la difaaca taasa sharaf ku leedahay taas anaga sharaf ku leenahay taas sumcad ku leenahay taasaan horumar ku gaarayna oo wax isaga celinayna oo biskaan garaaci karnaa aleenahay see ku dhici kartaa visa ka haysan tuhata waxa way yesa makso anaga community waxana la dhaayo Soomaali waxa way ku nas anaga ka haysan tuhata kumina tuhata waxa way yesana bixina anaga
been qushan ku fadhiga laga kaca cid kula hadalka cid kula hadal ma jirto lawyer markaas lawyer kan ugu qatarsan qabsanaysa lacagtaas wuxuu ka qaadanaa dawladdu wuxuu leeyahay urur weyn community Soomaali ah way dawladdu ku xisaabtama wuxuu leeyahay Soomaalida maxasas loogu galay waa dacwada la tigsanayna sharciyadu la soo baxa constitutionka dastuurka la soo baxa wuxuu leeyahay qodobkaas qoraayo hadda laakiin lawyer ma jiro maxaa yeelay qolay dhexe gacantaas ugu hayo marka cunuga maskiinka Soomaaliyeed Maxamed maskiinka wax ma qaban karo waa reality wax la inkraama wax uu qaban karo wax ka bedeli karo mal cid uu doodi kartaa ma jirto walaalayaal nimankan saas way waa ka daba qaadanayna 10,000 oo Soomaali ah 5,000 oo Soomaali ah sharafta kama qaadi karaan magacoodana kuma dheeli karaan mar kale waan ku celinaa intaan qarxiska sheegin nimankan mashruucan wata intaan sheegin walaalayaal waxa idin sheegi doona dhamaan laag share insha Allah taala barnaamijkan xasaasi way walaalayaal waxa idin sheegaa dhamaantiina xildhibaan deegaan ha isoo sharaxin haddaba isoo ceebeenin cid ku dooranayso cid ku siinayso ma jirto nin kugu qabiil ah oo bari ka maalina la caynaayo hadduu raali ka yahay ilmihiisana iskoolka lagu caynaayo oo asagana la caynaayo xaaskiisana dadka dukaanka adeeganaysa la caynaayo hadduu raali ka yahay asaga ku codeeyo laakiin nin walbo Soomaali ah nin walbo aqli Ilaahay si hooyo dhalinyaro ah cod ma dhiibay habeenimo cod ma dhiibay maalin cod ma dhiibay haddaba isceebeenin nimankiina xilbaan deegaanka haddaba isceebeenin cid idin dooranayso cid odaysiinaysa ma jirto aniga aad aragteen Shariif ah oo intaas dhacaankeeyay kartideeda aan ku bixiyay waqti aan u geliyo Soomaalida filan inay horumar gaarto marqaati ka tihiin habeenku ma fikrin Ilaahay waa maqlaa cawada mees dhulkaas Ilaahay la dumiye habeenku ma fikrin mana ku soo toosin ina xilbaan noqdo ina soo sharax ma ku fikrin maxaa yeelay war shaqada hayaba ka muhiimsan adduunka horumar wuxuu ku gaaray war qofka shaqadu aniga Soomaali herbaadiyal way qof walba wuxuu ka fikiraa inuu wax asaga wax noqdo leebis war aniga shaqada hayo I'm very important inaan dadka baraarujiyo activist Soomaalida suuxil Soomaali wanaajiyo inaan soo saarno dhalinyaro inaan soo saarno nin wax tar leh wax sameey kara inaan soo saarno waxay Afrikaanta horumar nooga gaareen Carabta horumar nooga gaareen ajaanibta horumar gaareen intaas way annaga keenna dadaalayo wax qabanayo wax tashiilna waxa leeyahay war adaan ku dooranayna adaan ku sharaxayna adaan ka dhigaynaa baq taas wax macna ma sameynayso waxa macna sameynayso ninkan fikirkiisa aragtidiisa fog ninkan waxa way inay Soomaalida horumar gaarto way qof haduu imaado kaasa waxa hoosh wadi kar wax weyn maahan asaga laakiin sharaf waxa waa inay Soomaalida horumar gaarto maanta ana hadu nin Soomaali soo baxo fiican oo Soomaalida wuxuu qabanayo wallahi billaah taala waa ku farxa qalbiga ay qaboobay maanta gabar Soomaalida soo baxdo qalbiga ay ku farxa saasa Soomaali horumar lagu gaaraa waana fikirkeyga waay oo aan raba generationka anagana bedelayo dhalinyarada ah oo suku balfiga anagana bedelayo oo Soomaalida horumar gaarayo inuu fikirkan qaato inuu Soomaalidnimada ku faano inuu fikirkan qaato asoo dadaala wax qabanayo inuu ku fikir inuu asaga wax noqon inuu ku fikiro fikirkiisa macnaha aragtidiisa inay horta meel gaari karto inuu qof ku fikiro horto kadib wax waay dhalinyarada Soomaali markuu aado Soomaali wuxuu ogaanaa dadkiisa inuu baahan yihiin Soomaali laakiin hadda كان في عناد هذا الصومالي هذا ما شاء الله قميصة نمكي لأن الصومالي جاهلين جوا قبيل كي قبل قصينا عليه قبيل كذا كوجر هذيك محكا قال هذيك صومالي هوش يدمدو حدين الله صومالي هوش يدمدو صدقنا الله فرنا صومالي هوش يدمدو وحن كنا ما كنا هالسنة إلا بسنة أو حلا فرنا صومالي هوش يدمدو الله فرنا وحكمت هاي ninka dhalinyarada Soomaaliga markuu dadaalo wax qabanayo fikirkiisa oo aragtidiisa fog meesha gaarsiisanayso lugaa la qabanaya waxa loo qaban waxa way asaga inta la tisqila waxa leeyahay wax noqo hadhow markuu wax noqdo oo meel soo fadhiisto waxa leeyahay mujadinaha waa kaasa wuxuu la orday oo la qaqaylinay oo waxa uu sameynay xukun loo rabay hadda xukun ku fadhiistay waa kana hadhow dadka lagu diraasay waxayna kamid tahay fashilka ugu horeeyay number 1 dadkeena haystay kamid tahay ragga Soomaalida kamid tahay taas waxa ka marka aniga wayda sheegaa habeen ku fikir maalin ku fikirin wallahi waligeena ma rabo inaan soo sharax xilbaan noqdo ma rabo aniga Soomaalida inay wax noqoto very important way qofka fikirkiisa fikirka inuu gadmaa la rabo adiga haduu gadmo adiga sharaf ku tahay wallahi adiga sharaf ku tahay wallahi adduunka soo ku gaar wadamada jamal saasa lagu dhis aw jasa lagu dhis nimanka inta qarxin waxa ka sheekeena qisa ka sheekeena oo ka faa'iideysan walaalayaal jarmalku waxaan qabtay sheekada ku keenay mugta waa meelaha aniga aan waxa way arrimada aan ka qaato way
ولا القصة وحكي على جرمالك نين أتقانين هتلر الله هايو نمكو قرحي دونا نين هتلر الله أتقانين أقف إحنا أولادين أو والنا أو أدونك قربي على أركتين أدونك أنتقال وحن هن ضد كوالي جرمالك دلتك مركي أركان نكان فكر كيس دم إنه فكر إنه واحد دلي إنه واحد قربضه هو أركان إنه متقانين كارت إنه متقاسين الخارجي لو مرة السكوتي ولا خارجي مركب فكر وحلا كينه إن هرت نكا هرت لا شقي هرت لا شقيه أو الأجوجو dadkina la tashqiiliyo macnaha ninka asoo generaal ah oo askarta tashqiilna macnaha askartu wax u sheegaa mataqaana dadkii tashqiilna dadkii wax u sheegaa mataqaana si shacabkii loogu diro shacabkina markaas waxay aaminsanayeen father aaboodu Hitler uu ahaa marka shacabkii oo dhan waxa laga dhaadhiciyay ninka inuusan aabba ahayn ninka inuu sharaf u weydin ninkan inuu dadka society-ga Jarmalka uu ciribtiray macnaha oo sumcaddooda sharaftooda meel uga dhacayo shacabkii waa kaceen shacabka markay kaceen askartu waa ka siibteen taas waxay ka tamarkay in asoo ruushka jooga adduunka qabsaday in la soo jibiyo al ultimo asoo barin soo keenay kadib meesha isku dilo maxaa yeelay nimankaas fikirka keenay jagada ma qabsan hadduu fiirso markii asaga la riday ayaga jagada ma qabsan waxaa la soo sharaxay dhalinyaradii iyo dadkii markaas joogay oo aqoonta lahaa oo professorada ahaa la keenay ayaga maanta ma hormar gaarsiiyay ولا لا أساسا أو فكرنا الربا مركا أنا يرك بدنا يلم إذا دلالة أيوة وحقبنا أيوة أنا فكر كي يكون فينا وحواي إنا وحكبد الله وقت ما أنت فينا حالة ما أنت من الصومالي إنا هم مرجرسينه إنا إحنا نقول لكن هذا السوشيال روحه وحنقضه هذا كول واقع قبنا أيوة صومالي واتقن ولا قبنا وسيد وزير أنكون هاي سيد ملاك كلا أنكون هاي لأن يرد الناس وقاعد جنريشن كا أنا جو أنا تصل نجاقاتن وفكرهن علمان وين نجاقاتن ما حيل ونجف فرعيين دون وقت كمان ترجعوا التكنولوجيا يعني اللي قبصدين وحوا ده حبرتوا الجماعة اللي جايين فكر كان مركو قاتو بريك مال أصور وسعنا الدوق ساس وجد ساسوي ساسوك سعدا وحرجينا وحنكو هلايو إن دل يرد قاتن أي كيف فكرنا رجينا هدي ليلة أتصل رجينا إن شاء الله تعالى هدي ليلة أوكي كيس كان قلينا ولا ليال كرو قاعد يحكرنا كقصو بلاو تضبط إني وايد شيء أو مفلسين مقال كل واحد حتى ده ما سعى كل واحد مقال سعنا وكل سعنا هذا حسنا إني كان نفي عن واي ني واحد برتواي نيس كشقيس نقول نيس كجواس هذا نو أيوة حجرة دت كان ميلا فديستيو دت كان بوقي قلا دحين شو متو حوك كويس تفيلان دت كان بوقي دت كان ميلا سوف فديستيو خطر نيس كديجا معهم وحوا وقف جابين هاي ترتيب ميلا الصعداء ترتيب قوي الصعد ومعنا قوي الصعد وانتو قوي الصعد وين ولا ليال كيس كان إذا كنا مش قدام بس بارتي عوضة إذا كنا دونا ولا ليال حد واحد يشرحها يا كدم بمشروعي العقد الوقاتي ما تقانا أو فشل مي أو الربي العقد اللي عنه ما تقانا إن أو قدومية أوجي ولا ليال نكا مسؤول واي دقة هلسينك مسؤول واي حفيظه فديها السجى صومالي ورك مغلاي صومالي ورك وكنتنا مقادنا وحواي هلسين كابوك وحلا لا أمني هذا رجع ينقرحنوها هلسيك وحلا لا أمني لا ولا لا ما أمني هلسيك كابوكي وحشجع لامها أو سوشيالك وحواي بتقانا قيب واي قيب كستبا قيب يقابل سنته حافظ كستبا قيب يقابل سنته قيب تاسع الشراء مركي شران ورك ولا سوق بيو مركي لسوق بيو ميسكو حيمانايو قلدي دحه او هلسيك كابوكي قلadaas markay ka fadhiisato waa la soo gudbina waxa loo soo gudbina mataqaana dadku go'aanka gaaray oo duqa magaalada iyo ku xigeenadiisa miiska la soo saara miiska marka la soo saaro waxa leeyahay arintan Soomaalida coronavirus-ka oo la sheegayo inta ka imaad waxay ka imaadaan leeyahay xaafad hebel socialka joogo dadka ka shaqeeya hebel waxa way akhbaarta noo soo gudbiyo xaafadan kale dadka joogo akhbaarta joogo aan soo gudbiyo way dadkaas yaa waa dadkaas saas waa mees marayaan markaas uu qaadana go'aanka duqa Helsinki hadda waxa faafaynayaa سوق قاتي قانك اسكما شيغاي انت لو كين اسكما داhay waddanka sharci nidaam uu leeyahay dad asaga ka hooseeyo u soo gudbinay ayagana waxa soo gudbin marka gabadha la dhahayo maama Khadiijo oo baasir degan waxa way maama Soomaaliyeed oo maama wax u qabato way laakiin sheekada waa ka hoos baxday nimanka ay sheegay golaha dhaxa isticmaalay magaceeda la isticmaalay برنامج ay mutaqaana socialin ka dhaadhicisi inuu Soomaalida waxa way cudur isqaadsinayaan in Soomaalida cudurka isku daaranayaan in Soomaalida aysan daryeelkooda fiicneen baqbaq waxaas dadashay waa laga dhageystay Soomaali badan wareystay waxaas dhahday waa laga dhageystay waa la gudbiyay waxa soo haray nin la dhahayo mutaqaana sheekh mutaqaana sugulle
ولا أنا الشيخ سقول أنا وحكون قانا نين ويا كنا قانا مساجد كباس الإمام كان نين علوسواي الشيخ سقول وحواي ضدك وقص السرايا أو حواي مساجد كي وحواي سومالي توي مركا وحواي وحنا كم إذا الشيخ سقول ضدك أصلا الاستعماله أو متقان لا استعماله متقانا إن مركي وحلقة محيلي وحواي أوذو كلية حق الصومالية أوذو كلية حق الصومالية أو دقن كدينتنا أوذو كلية مركا أصلا وحواي وانين آدي وحواي أن ما لروح كأركين واي أو مربى الاستعمال الشيخ سقول مركا الشيخ سقول إنه هز إنه أنتجي أو برامج كسر دوبي أصلا ترجمان أو متقانا إن مكان قلاد إحنا كنا دعيان إنه ماشي تجي مركو ماشي تجي برامج كوال هايا وصوت دوبي وليه متقانا برامج كروها هز إنه ده سومالي وحواي هز وحواي كمبرينغ وحواي أو أخبار أيوة أو عفبات كوي مركا إن كمبرينغاس أو أتجو ومتقانا أو كيرا هذا متقانا ما موتيتك وحواي هلزينك عذرك متقانا إن لفافيناي أو أسجنا مركز أو كذا دعية أو متقانا أو شكل لو بدلو سومالي لو بدلو وحكمت هاي نمبر 2 وحواي سقول له كيس كان وحبو كله شخص سقول له شخص سقول له وحواي نيم وحواي دين تكفي عن واي نيم وحواي إلهي سبحانه وتعالى أو يكمل إنه سومالي وحبره واي مركز وحن يا وحماه إنه متقانا شخص سقول أردنا كله هوس إنه تجا ورئيس أو كسو بحيو متقانا ولي هوس هذا ما موتيت كلاسيك دقن هوس ما دهين إن سومالي ما دهين مركا إن سومالي لو بدروا وحكمت هاي فشل كان نمبر 2 قبصة كمت هاي سقول قبصة كمت هاي نمبر 3 يا واي نمبر 3 وحواي متقانا عبد الرحمن هوزو واي عبد الرحمن هوزو سيدا هروك وقول شيء ما كان استعماله مرة بقى استعمال أنا فشلي عبد الرحمن هوزو وحواي نيك وحواي أو قيبته وربعينته هذا الله استعماله واي برامج كان فشلمي أو هاي واي مرة على مركي شيء كذا أو دوق كل واقع هذيك مذيا فديسو إن وحواي على متقانا ورياشة أو سومي بيستفيد ليتيو وحكون هذا متقانا وكل ورسلنا عذر كان إنه سومالي فافو بق وتودل دلاي عبد الرحمن جناح كود أحسن أكتم ولا جناح كود عي سومالي متريكر أبسولي سومالي متريكر هبين متريكر مال متريكر أنتوا جناح كوجرو عبد الرحمن ني ولا كان واي aniga xumaan uu qaba asan oo ogyahay kambeegiis waa taageeray Soomaalida fiilana marqaatay ka taa Cabdiraxmaan Husu waxa way nin waxa way Soomaalida wax u soo qabtay waa cid inkari ka tamaajimid maanta wuxuu mudan yahay Cabdiraxmaan inaan bilad siino dadaalku Soomaalida u soo qabtay laakiin intaas sano wuxuu asagana uu ku jiray mashruuc kasto oo meel lagu qabanayo oo nimankaas golaha dhexe ay soo dhameynayaan Cabdiraxmaan Husu dhinac kaga laha asagana Ilaahay inuu ogyahay asagana ogyahay waxaan ku hadlahay Cabdiraxmaan Husu walaalow maanta Soomaalida meel xun ay arinteed maraysa Ilaahay inta ka cabsato nutta awrita inta this is enough inta waan ku filanta walaalow waxaan ka codsanaynaa inta ceebna maanta in haysata maal watan ceeba noo keentay oo meel walba aragtay oo Soomaalida la xaynay walaalow waxaan ka codsanaynaa isgaabi walaalow iska aamusa meel iska fadhiiso intaasaan ka codsanaynaa وهذا سومالي ما جرتوا واي هذا ربط بلاد هذا شرفته أنت سنة دقيقة عنك عبد الرحمن أتكسر لما يصير هذا ربطه ولا لو إسكفديس ما أنت متأكد مالك كهذا شو ما أنت متأكد مالك من يسوفديسه ما أنت ما متأكد كرتد وحلو شيء قيانة قرنا لو شيء قيانة قرنا سنة يسألوا هاي بعدين وعوي تاسا وحابة من فضيحتي وين ذا والله مسكوا صار والله marka ina aamusto oo shibna hada eedbo hadda madiiso fadhiisa aqal qayris taasa waxa ay darbaaxa kale ugu dhacaysa marka damor Cabdiraxmaan oo madiiso fadhiisto damor darbaaxa ugu dhacayso wallahi jeceelan ku qaban ku sheego aniga Soomaalida xaasidiin way waa ku isticmaalayaan damor madiiso fadhiisa Cabdiraxmaan damor darbaaxa ugu dhacayso wallahi bila tala damor darbaaxa ugu dhacayso Cabdiraxmaan walaalow naga fadhiiso هذا إن هذاك سميسو أو رج أو كو قبيل يلقى دعيو والله بالعيقنا وعيوين أذيقنا وعيوين أنا واحد معنا من قفديسو أذيق لا سعيبينيس أذيق أنا واحد معنا من قفديس أنا أذيق لا سلبس كقاديس مشروعا إن لك كل هاي إلهي وأجي أذيقنا وقتها عبد الرحمن وقتها سيكو كنت إن مرة بديسو في الدفاع هذا صح وين دولة أنا جاي نعاونيسا دولة أنا جاي نقول ونيسا سيكون كرتا absolutely وعوي ممنوع أدو فينشكي ما ده إن سومالي كلا قف أمانة كده مقرن واحد نقسمي واحد يدفع حمدنا نقسمي سيودي كرتا متقنا وصح وين دولة وقص حسن سيودي كرتا واحد يدفع حمدنا واحد الرحمن واحد سميس والله واحد حمدنا سميس سد حداس قف مام خديجو
sheekh sugulle iyo cabdiraxmaan husu waa saddexda loo adeegsaday mashruucan way mashruucan wuxuu ahaa mashruuc oo dad xafaasanayn arrintan oo mataqaanaa oo ka dhacday mataqaanaa taakaskus lacagaan waxaan waxa waaye lacag oo waxa waaye la wiil kor la ballan qaaday waay oo hadda la soo shubo waay oo kaararkaas waay kuwaas waxaas wax macnaa sameynay dad waxa waaye cuntus lacag shaqaysana iska qaadanay waxaas wax macnaa sameynay waxaas wax weyn ma waxaas wax weyn ma waa lacag waxa waaye kaniisi kaabunka kaniisada laga soo aruuriyay waay marka nin dhanoo taas qofkaas ay dhibaysan nin dhanoo salaad dukanayo allahu akbar dhaayo oo kaniisada lacag laga soo qaaday dad uu qayb inta uu geenayo horta kaas asaa bahdilan kaas wax laga sheegay ma naqaano kaas wax laga sheegay anaga waxaan ka hadlaynaa waxa waaye mashruucan oo weynaa oo hadda fashilma anaga ka hadlaynaa kaasaan ka hadlaynaa walaalayaal mashruucan wuxuu ahaa lambar 1 maam qadiijin dhinaca socialka loo soo maray kuwa u shaqeysa loo soo maray sheekh sugulle hus kambari hus uu tagay dhinacaas asagana soo maray cabdiraxmaan dhinaca madiya oo soo maray saddexdooda programka mashruucan saas u ahaa mar alla markuu mashruucan hirgalo duqa warqada loo geeyo waa loo geeyo accept u dhaa asagana waa hadlay kadib barnaamij la sameeyay barnaamijkaas oo loo soo maraayo ule bistafi waxa fadhiya wala xaasha mashruuc waa loo sheegay laakiin looma sheegin wala xaashi lama dhihin mashruuca noocan lama dhihin waxaan aaminsanahay hadduu ogaa lahaa la dhihi lahaa soomaalida saasaa gooni looga dhigaa oo sida hadda duq u hadle waxaan aaminsanahay weli xasha ma yeelen habeenna ma yeelen maalin ma yeelen ana saasaan aaminsanahay marka waxa waaye kadibna waxa waaye programkaas la sameeyo oo barnaamijka la duubo mataqaanaa sheekh sugulle la wareysto sida hadda kor loo wareysto markuu u fiirsado sheekh sugulle meel walbo lagu kuleeyahay tii oo soomaalida markii oo 2004 lagu kulaha tii oo mataqaanaa argagixisada lagu kulaha waa tii la wareysay tii kale oo mataqaanaa Soomaaliyeed markay is qabsatay oo bitsada la isku qabsaday aragteen 2002 TV laga soo daay Soomaaliya marqaati ka tahay sheekh suula la wareysana markan sheekh suula la wareysana waxa la wareysana Saciid la wareysana waxa la wareysana laba Saciid ka aragtay hadda social ka shaqeeyo iyo sheekh sugulle iyo waxa la wareysana Soomaaliyeed ninka haysto sheekh sugulle maxaa soo galiyay maxaa soo galiyay wareysigii kale oo argagixisada markii la sheekh sugulle maxaa soo galiyay macnaha waxa way mar walba lugtu adwa faantamaan boontka inka tusay marka aniga sheekh ana aqoon muliim man nabi aniga laakiin kiiska ana ahaayo oo cadeynayo waan huba waan la soo bandhigi doonaa hadii la yiraahdo sheekh sugulle adeero waa ku baryayna nin sheekayna tahay waa ku jecelnahay wax badan aan ka faa'iidna nin quraan ku fiicana tahay wad intaas soo wadi nin dano imaamad Soomaalida ku aaminsanata adeero nimankan ka har walaalayaal mashruuca noocaas ah inay lacag ku bixiso sida looga hortagi lahaa oo loo sharaxi lahaa Soomaalida loo sharaxi lahaa oo helsiga degan loo fahansi lahaa coronavirus ku wuxuu yahay intaas la bis qarashkaas oo u dhaxeeyo ilaa 30,000 ilaa 100,000 u dhaxeeya lacag aad u badan waa lacag 30,000 ilaa 100,000 waa qarashka u badan waa helsiga kaabunka waxa ceeb ku ah Soomaali intaas 10,000 degan oo cudurka si faafinayso ceeb iyo fadax helsiin ku taana runtii sheegay ceeb iyo fadax helsiin ku tahay helsiin kaabunka ka hadlayna ceeb ay ku tahay arintaas ceeb ay ku tahay marka taas marka waxay inuu ku dhiibto helsiin kaabunka lacag ay leedahay waa caasimada dhan waaye dad iska dhaaf dad masaakiin oo jidka jifa lacag la siiya helsiin lacag siisaa walaalayaal telefishinka ninka ogaan cawad ogaada dib ay xasuusinaa cawad ninka ogaada telefishinka dhan ee qaranka aad aragteen 5 milyan daawanayso ani wallahi suuxka shaqada soo galay bal musha nifrish ay weydiyo wallahi wuxuu sharif mita tatete ma sameeysan uu yiri wallahi ana wata nabiil iga dhigay wallahi bila tal wax aan ku hadla aan garaway 2012 meelaas 2012 inay u maleena telefishinka qaranka laga soo daayaan ku dhahay lacag yaro yaayo way waxaan 20 dhameen waxa la yiri lacagtaana aad ku maqan wala soo dacwo yaali dacwaan ku qabsan lacagtaana aad ku maqan garbaha la yiri bitsa ku cunta la yiri waxa la soo saaray intaasoo bitsa waxa la yiri waxaano lacag ma bitsa lagu cunay ma waxaan geeyna meelaan geeyno oo banaanka meelo oo reiso dhamma bitsa lagu cunaa la yiri wallahi bila tala wariyaas soo yiri wallahi wax jada show Soomaalidana waa aragtay macna waxaan rabaa inaan xasuusiyo
waxyaalaha aan soo marnay foolxumada aan soo marnay sida naloo bahdilay ilaa ay hadda maanta waxay taagan tahay isla mashruuciyo kale maanta taagan tahay tii hadda maanta lagu sameeyey isla exactly tii oo kale leewaay ilaaha idinku dhaashay lacagtaas maanta haddii la sii lahaa waxaad sheegayaa lacagtaas maanta haddii la sii lahaa ilaaha fashilay horta ilaaha fashilay alxamdulillah subxaana allah waay ilaaha ceebiyey maanta haddii lacagtaas la sii lahaa oo telefishinka loo wici lahaa oo weli xaasha imaan lahaa oo la duubi lahaa لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة 6 سنة والله بلا عيبان دحفر إليها وحال صور لها سومالي ضد صوت التقي ضد قريها جوجو ضد متقانا وحوا عافمات كوفي عنان ضد وحوا متقانا أساس والله إلا من 6 سنة كلها ونقول باشا الله وحك لما كان أي شيء قلا دحي وحكلو مدرن وحا أدرن وحجاب قلا أدرن صدق كاسكون بقول كاسكون سلوا قبسنا واسيد هذا لو قبسنا واي تضرب بقول يكونتم كون سومالي تلسي انت كبحر والله بلا طلع واحد شو عنقا مسكينك هاد مشجو وحي اوغي مال كان كخيغو وحي نما صاحبي نما ادو في عن نمكاس اني انا wax kama sheegani sababta waxay اوغي مال lacagtaas meesha ku baxata walaad ma sheegi karaan wallahi waa dhaar awado dhaar ka in sheegi kala meesha ku baxay in sheegi kar نينا سؤالي سوي دي وحولا إمد مكجرا إمد وحواي نين وحواي وحبحنا أيواي إمد وحواي نين وحواي أو وحشاشة أيواي مرك إمد قلاء دحم حتى حدي القدرة حتى وحواي إسلام مركي وحشنا نلقي جذورنا شنا دك 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 نكا مخلم اللي نكا مخلم أتماتي مش والقصة برونا نين ضاعوا مسكينة أو دتك وحساسية دتك أو جايب كيس وحكديو إسكا مساكين واي مخلم إمد قلاء دحم ما بقي لي كرب قلاء دحم نمن أو حواي موريان أو حواي إلهي كحبسنا إنه إلهي كنحين واي نمك قلاء دحم كجر نيكي سوي دي إمد مسكين واي إمد محوقة إمد لا إمد محوقة إمد مسكين واي ولا ليال هيركاسا ما أنت مرينا أرنتنا وايدين قرحي مشروعنا وايدين شاقي قلاء دحانا سو أباب الشيء مدون سو جيتماي قرشانا وحال دياري مالا على مالنتي دولة فيلان كل واقضي شان يتوانك بيش السدحات متقانا لابد كون إلا باتنكي أول داي ودنك بنتو وكجرا وقفل بقرقيسا كجرا مركاسا شاكدان لكيني مركاسا شاكدان لكيني برنامج مركاسو بلاودي برنامج ساسا لقودي متقانا وحين متقانا كفا إدستين متقانا هوز تغان متقانا دمع كلنا مامدنا الله سمرو قيبته السوشيال كي قيبته هوينك سو أرورسي إن هذا هوينك عذرك فافيا أنا سو أجابي متقانا هوينك مركز هوينك مساكين ورناها هرقم كودا وارت هوي مساكين واي هبلاي حاسد واي هبلاي عذرك نوكنت هبلاي عذرك نوكنت سو شيء عينه كودا يوتيوب هذا يوتيوب Somalia مساكين ومقطع هذيك يوتيوب كده في ديستم كوا أو رفانته والله هو Somalia دقبله ما هي قرية الوجرة ويكون في ثانية ربان عذرك على فافينا Somalia حاسدين واي Somalia حاسدين قولها دحى انت ربي انت سي قبسدان وضبطين ما مدى لو ديبي سوشيالين كان لتوسي سوشيالين كان وانحن مركز مركا ددقينان قبلينا ويوتيوب كان عرايو واكاس هذا ما حكا دفتي واكاس سبحانه فينا او كنتني اشرحوا ما هذا نو كنتني ما حكا دفتي قبلينا يوتيوب كا اسكا خيلناي شنت نمك قلا دحى إذا شيء تضبني واي ودنك وحي جوجان ونمك أو مدة 20 سنة سومالي ذا قريبي أو سومالي ذا مشغولية مشروعية نقاطه وأتا إذا شيء سومالي تم دتك كان مدح لك كان بحي أيها كانوا هرنا هذا كل شيء نمكاس وحواي نمك وحواي إذا كأفهم كريم واي أنا أنت إيش شغال هذوك واي جوجات بفهم كرت ما بكفيلنيس ولا ما كفيلنيس والله أنا كفيل كريم وحاجة ده هوية إداراتك تضمني واي لبدي كوني لبدي على أساس قلان ده تضمني واي والله وحجة شو شريفة تقني وحلوة يسوق بناني وحلوة يسوق بناه تضمنين هوية إدارات واي حتى ساقو مجرد هوية إدارات لا بس تضمن مرك هوية إداراتك أبقالك كلا أبقال ما بحمل كوكلا أبقالك يريك أبقالك واي أو أبقالك لا تشوي وحصهري أبرقي تكو يرك واي والله وحجلان شو والله وحصهري مجرتين كو يرك واي أو مجرتين أو قد كو ير والله وحجلان شو ما قرناه مركا إن داراتك كلنا كو يرك وهذيك أنت سلوا بس نمكان ساسي وهاي وحين هذيك سنة ضدك أو مجا كله شيخ سقول
عبد الحميد هذا ما ذيك سكر عبد الحميد وافشلمي متقانا قف كستو soo baxay oo isdhahay shacabku jeceliin ee adeegsanayaan aniga waa idin sheeganay wax walba u sameeyaan ku dhahay waa isticmaal waayeen ayaga ka horeeya aniga nimankan Soomaaliya aniga Muqdisho aad aragteen aniga awoogiga kaabka awoogiga aniga gogol u fidina ilbaxnimada ay jooga mugta ilbaxnimada aniga gogol aan fidinayna aniga ilbaxnimada meesha ka gaarin manino hirbaadiyo oo badow oo tuuga ma aniga qiyaami kara aniga marka waxa waaye inta idinka isku dhufsada shirka markii la yeelanayaan ku dhahay shirka markii la yeelanayo mashruucid markii la yeelanayo ay waxay imaanayaan markay Soomaaliya shirayso markii la maanta Soomaaliya taashirto qashayda sina mugtay Soomaaliya taashirayso markii la dhaho ma taqaana in xafladaha kale baartiyada kale ma taqaana sida feestooyinka kale Soomaaliya ma taqaana ururada kale loo wac markii loo macnaa afarta urur ee Soomaaliya taashirayso ururada macnaa waxa way Soomaaliya waxay u wacaysaa leey ururada kale wacaysa qashayda sina mugtay Soomaaliya waxay u wacaysaa ururada u wacaysaa ururada yaa way ayaga way meesha fadhiisanayaan kuwa lacag la siina waxa leeyahay duub adiga markuu duubo Soomaalida fiilan waxay arkayaan Soomaaliya maanta waxay la shirtay ururadii oo kale oo ka dhisnaa fiilan way toodi gola dhex way wallahi Soomaalida masaakiin way waa fiirayaan waxay leeyihiin ururkan kee way kan yaa way waa ku mashquula masaakiinta waxay waa ku mashquulayaan nimankan noocaas way todaas nin way marka ayaga markaas ma soo fadhiisanayaan bis marka shiray Soomaaliya ururada Soomaaliya waxay markaas ay ma soo fadhiisanayaan qashkaas ay disi waa fahmaysi waan idin tilmaamay waan arkaysa dilayna ana idin soo gilna ana idin soo ka walwalin aniga laakiin saddexdan qof waa saddexda qof oo loo maray mashruucan inuu hirgalo loo maray way walaalayaal waqti dambe waaye waxaan jeclahay inaan barnaamijka aad u faa'iideysan jeclahay waxa waaye barnaamijkaas aan soo galay barnaamijka qosol ma barnaamijka karbaash maahan inta barnaamijka baashaalkana maahan marka barnaamijkan aad u xasaas u yahay wax badan ay kaga baxay hadii la yiraahdo dawladda waa la xisaabtami doonaa qof walba waa la xisaabtami doonaa insha Allah ta'ala hadii la yiraahdo marka waxa waaye muxuu ahaa waxyaalo badan ay soo gali doonaa qarxis badan ay soo wadaa todobadan nin saddexda qof ay sheegayo todobadan kuma jiraan todobadan golaha sare golaha dhexe ana idin sheegi doono shakhsi oo magac dhabeena hadii la insha Allah ta'ala marka dhamaan waxaan kaga mahad celinaa inaad iska ilaalisaan waxaan kaga mahad celinaa inta cod ka dhiibatay waxaan kaga mahad celinaa kunkii 500 cod ka dhiibatay waxaan kaga mahad celinaa imtixaana Soomaalida Finland imtixaana inay awood yeelato dhamaantiin waa maasantiin insha Allah ta'ala hadii la yiraahdo waxaan noo balana annagii dawladda Finland aan noo balana annagii waxaan noo balana duqalisiinka noo balana duqalisiinki abordas dib anaga ma dhehna aniga waxaan rabaa inaan tusino waxaan codkan u dhibayno waxa way aan saxiixina inaan tusino inaan anaga awood leenahay aan 8 kun 7 kun aan nahay anaga xaq aan leenahay xaqeena xuquuqdeena aan dhaxsanayno intaas dad tusinayna helsiinka bukan tusinayna socialinka tusinayna anaga wax kale aan rabno male waxaan balan ugu ah aan u dabar adeegayna hadii la yiraahdo hooyooyinka iyo dhalinyarada iyo waayeelada iyo shaqaalaha Soomaalida inaan u istaagno inaan u adeegno hadii la yiraahdo insha Allah ta'ala dhamaan waa salaama dhamaan waxaan jeclaan ku raaxaystaan jeclaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh